Anguni mio di bahatamuto Do mahalaiga sarai dinayagae Dara hartan wahyela dihi daqdaqe Alan kadid baysow ma soo dirweyne ودوي ما محمد dad badan baa daada dhexe cid walba ha ahaato marka la Maxamed Salmaan Tubic cid kasta way garanaysaa waa boqorkii codka Soomaaliyeed bal waxaad nooga warantaa barbilowgii fankaaga sidii aad ku soo shaabaxday iyo sidii uu fanku kuugu soo bilaabmay waxa weeye fanka horta fanka waxaan ka soo bilaabay anagoo yar baan bilaabay marka dadku inta badan waxay leeyihiin markay fanka soo galiyaan inay taban helaan ama macallin helaan waxbaro oo yani ku soo ababiyo wixii la hagaajiya laakiin anigu waxaan bilaabay fanka anigoo 10 jir ah waxaan garanayaa iyadoo miisig ba jirin oo anoo yar marka ilaa 12 meelahaas arsadii waxaan laga yeeray markaasan ka his jiray dirbaan baa 10 jir marka ay daf bangaraya san sida ugu jiray fankii u baawan maxay to fanaan weyn ku soo baxay waxaan ka wadaa aniga macallin ma lahayn anigu macallin farid ma lahayn ma lahayn macallin marka aad 12 jirka ahayd saan taariikhda ku hayo waxaan maleeyaa sooyaalka taariikhda waa magaalada Berbera waxa weeye Burco iyo Berbera labadaas dhaxay oo xilliga kuleelkana waxaan joogay maxay to Burco xilliga qabowgana waxaan joogay Berbera marka bilowgii barbaarinta fankaagu Burco iyo Berbera waxa kadib waxa igu maqaalaa inaad u soo gudubtay magaalada Hargeysa oo walaalihi Hargeysa aad halka ka bilowdeen si taariikhdaas ku dhacday waxa ka horeysay Hargeysa waxa ka horeysay Djibouti waxa ka horeysay Djibouti baan tagay anigoo marka aan gaar baan Djibouti tagay waxaan ka bilaabay Djibouti idaacadda Djibouti aan ka bilaabay fanka oo marka waxa haystay Djibouti Francisca haystay marka idaacadda Djibouti aan ka bilaabay nin ka mid ahaa dawladdan hay'adda Djibouti oo hadda dhintay Allah naxariiste Cabdulqaadir waa bari loo jiray ba marka idaacadda haystay oo ka madax ahaa marka aan wadanka Francisca xukumi jiray sidii aan idaacaddaas ka bilaabay marka waxa noo timi jiray markaasi nin Cali Damaan la yiraahdo nin Maxamed Ciid la yiraahdo nin daah la yiraahdo Maxamed Ciid kaas wuxuu timi jiray laashan ay Soomaaliya tiraahdo dhaxyarta waa amar waabka bay timi jiray Maxamed Ciid kaas Cali Damaan taas uu timi jiray nin waxa jiray isaguna foorida loo timi jiray oo loo jiray Rashid baa loo jiray marka kam kale nin baa loo timi jiray isagana loo jiray Xureebi marka halkaas aan ka bilaabay ragaas waxay ahayn rag Carabi ahayn laakiin Djibouti ku dhashay Soomaaliga si fiican u yaqaan markaan sidii ugu jiray meesha baa niman dhalinyaro saaxiibna oo aan wada fadhiisan jirnay mar walba saarki jirnay baa Maxamedo halkan iskaga tago idaacadda Hargeysa markaa shidnay baa xagga qabo xagga ka bilow hawsha nin cod fiican baase marka waqtigaas wuxuu ahaa 57 qoladii taladoodii baan yeelay markaan Francisco meesha aad buu dhibaato dadku u gaarsiin jiray anigoo dhibtii dareemayo aan wadanka markaas u jeclayn ba walaas markay la taasaan ka soo guuray waxaan soo galay Djibouti baan soo galay waxaan soo galay Hargeysa soo galay marka Hargeysa Ingiriiska xukumayay intii mustaqbalka Ingiriiska haystay marka nin waxaan ku soo waxa ila socday marka nin la yiraahdo Maxamed Nahaari Allah u naxariisto dhintay ninka Maxamed Nahaar kam ku timi jiray marka nin waxa jira guroon jirin oo loorin jiray waad maqal jirtay maalmada guud Carwe guroon jir maxay soo guursan waayay oo ragii fanka ugu horeeyay ahaa ba kan ila socda walaashi qabi oo ka dhimato marka caruur ba u dhashay
markaasaan gurigii baan ku degnay ninkaasaan kuu sheegay Goronjiro la yidhaahdo Goronjirona markaa idaacadda buu ka shaqayn jiray markaasunba maalmaha iska fadfadhin unbuu ninkii ila socday nahaari la odhan jiray unbaa yidhi waa ninkan waa nin fadhaan oo haysa kamku kaasantumi jiro kamku bay qaado waan heesa uu yaabayba ninkan markaasuu yidhi idaacaddan ku geynaya markaasna waa nin aanu tii Jabuuti baan kasoo baxayo idaacad marayba waxaan socday reerkayga Barca jooga baan gaadhaya tii Jabuuti baan sigay markaasuu adaba waaye bal maxamed aan tukanoo bal soo daawo dadka soo kala baro fanaaniinta waxaan kaasoo wii kaxeysho qoladii maxay tahay idaacadda haysteen uu sheegay wuxuu nin yaabla keenaya ayaanu dhaaf marka meesha waxa xukumayay nin gaalo waber loona jira xukumi jiray laakiin waxa jira rag badan oo Soomaalida ku xigay baa jiray waxa kamid ahaa Maxamed Xaashin la odhan jiray Cabdi Ayuub baa kamid ahaa iyo rag badan oo kale markaasaan meesha yiri waan soo daawadsiinaya meesha baan tagnay marka fanaaniin baa meesha ka shaqeynayay waxa kamid ahaa Ismaan Maxamed baa kamid ahaa Maxamed Yusuf baa kamid ahaa waxa kamid ahaa gabadh nooleeye la odhan jiray Xaafuun baa kamid ahay Iftiin baa kamid ahay Guduuda kamid ahay marka wax rag oo heesa waxa ku jiray Ismaan Maxamed iyo Maxamed Yusuf iyo nin balweey la odhan jiray dadaas ku jiray meeshii ma tagay laasoo qoladii inuu labama qoladii baa soo fadhiistay studio macagaalkii nin waxa ku jiray isaguna ku xigay gaalka oo ninka Weber la odhan jiro waxa la odhan jiray Cabdiraxmaan Caabi baa la odhan jiray weelma caabigii maxay tahay hooyadooda Ingiriiska ah meeshii aan fadhiistay markaasuu bukankii garaacayo qoladina waa fadhida shoo taxan baaba laga qaaday aan isma ogi taxan markay bas saddex heeso baalay maxay too aan heeso waxay ahayd carwo hees leeyla laba biyoodayo la dhumayhi wukaaco ilaaha daytiga dilandere ilaaha daytiga dilandere dabada taasay carwa leeyahay ta iyo hees aroor leeyahay ayadana ويضنا دار وينمد كبقان جيرين يسرع ليلا لبا بيودايو لرباي بكاو إلى دايتيغا dilaandheer marka ilmada meeqaashinay tahay oo dheertay bari jiray taasna waa leeytuma dad hayso leeytuma qalis anigan yaanu dhaafine aan qaban markaas bishan toonbe heedo kaasale Maxamed Saciidkii gurguran jiray Maxamed tii nimanka meesha fadhiyay ma garanaysa maxaan ka garanay baan hadii meesha ku soo daawashay aan arkay dad fadhiyay meesha waa arkay ninka gingaalka waa ninka meesha xukuma ragga kale waa ragga ku hoosay shaqadii waa lagu qoray hawlda ma shaqad meesha fadiga la soo taawan bal meesha shaqadii waa lagu qoray waxa ku bishan waa 15 ka tembereeri baa haanisa marka bisha dhamaateen Birman baa laga dhigay marka tembereeriga lama jeclaan shaqada waxa la jeclaa Birmanka waa hadii shaqadu tembereeri teema barabe iga dhaafaan markaas ay qoladii ku noqday hooyadii uu booday markii tembereeriga markaas ay imku waxa ka bilaabay Birman baad marka waxa la qaadanaya lagu bilaabay 230 shilinka Ingiriiska libax iyo shabeel wax ku soo garmaay 230 lacagtii qaan jirtay Indiyaman uu siin jiray bay ahayd lacag fara badan bay ahayd 230 sidii baan dabatana magaalada ku degay markaasaan waxa socday halgankii gobonimada socday Allah markaasaan waxaan qoray jamciyadii maxay tahay SNC
SNC baan qoray marka ilmada idaacadda ka shaqeeya may samaysan jirin heesaha waa loo samayn jiray waxa uu samayn jiray Cabdillah Qarsh Cabdillah Qarsh isna idaacadda joogay Allah u naxariisto Ilaahu naxariisto waxa uu samayn jiray Cabdillah Qarsh iyo Maxamed Saciid kan baa u samayn jiray heesaha markaas anigu intaan xitaa xagga Djibouti joogay baan bilaabay heesana samaysto waxa kamid ah heestan ku bilaabay waxay inabti hodanay insana aha waxba ila hadlo insana aha sidii arkay insana aha hareer maray insana aha sidii arkay hareer maray insana taas waan ku bilaabay waa cod yaab la cod kale ma ogtay marka xagga aan ku soo bilaabay ba marka waxa jirtay xoogaa yaro adigu nin waliba wuxuu dhiibi jiray heesaha maxay soo nin waxoogaa isku yaro dhowdhowin ma ogtay iska yaro jirtay taasi runtii waa la dhiibi jiray laakiin taasuna way jirtay laakiin waxba leegama hakran jirin marka waxaan bilaabayba nin xagga ku soo tababar soo qaatay baan ahay heestii baan bilaabay inaan samaystaba markaas waxa la wada qaadi jiray heesta adiga maanta qaadaya heesta qaraamiga ay markaas socday adaa maanta qaadaya berita nin kala qaadaya saadama gabadh baa qaasa heestii baa la isu wada maraya markaas heestan qaadaba waxaan ku soo baxay yani boos fiican ba ku soo baxay walaal la shaqeynaya malaha hoosta ka yara shirto tiri waa ninkani program uu hayaa markaas waxa lagu soo heshiiyay inaan heestay qof qaado laga daba qaadin anu laakiin meeshii lagu soo heshiiyay ma joogin subaxda meeshii loo soo kalahayo markaas leeyin maanta shir baan la leeyahay oo ma dhacay arrin baan wadana anu waan joogaa meesha markaas waxaan ku soo heshiinay haddaan dadkii heesanahay heestu qof qaaday aan laga daba qaadin markaas Cabdi Ducaale nin loo odhan jiray baa yiri محمد سلمان ماشي كوسه شيشان ما جوغي markaasaan abdiyo hadaan waxba in ka saani joogini waxay soo gooyeen ku qarsoonay de maxaa haysiba wada qaaday wada marayba waxay wada saaqayba markaas loo daayay markii dambe qof waliba heestu qaaday waan samaystay markii dambe heesiyaan samaystay waxa kamid ah heesaan ku bilaabay badadii adduunka amaanada ilaahay amrigiiba jacayl iyo qaar badan oo kale aan xasuusanay de maxaan ka xasuusanay waxaa jira heeso badan aan sameeyaan waxaan badan la xasuusanaa heesaan ku noqonay markaan iska fadhino dadku iska jeceliyeen laakiin qaar badan lagu noqon baashiro waxa kamid ah heesaan lagu noqon waxa jira oo kuwa wadaniga iyo kuwaas laakiin kuwaas ma hay laakiin heeso badan baa sameeyay tidii ma dabateen heeso sameeyay marka waxa soo galay halgankii baan halka ka galay habeenkii عالم كلا ساري اللي هي لواتنكي شون اللي هذنكي با إنسان لو كياله مركز واحد سمي لبه هالصوت بنسمي مركز محمد حاشوحي كله يدعدا محمد سلابان هنا ماذا هالسوها وحقك أنت فرحتي هستن إيش حرنشري سو مالي يدلعنو ما أنت دولة بيننا هي صوماني يدلعنو ما أنت دولة بيننا هي درجين لينا هاي دلكينا وسرك عاي درجين لينا هاي دلكينا وسرك عاي ده ما في عن قاضي سيدنا برجع قاضي باني لو سنة عتك ولا سنة بدي تاسع من ده هاي عاوها بينك ما بقرين شيء هاد الله مركا عاوها بينك الليل هذا سايب هايدو وها هبينك بان تقني انت اسنا شنو لو كيا بان بيرت حريد كل اسكول شمنا راديو هرغي صدم markaas waxa isku beegmay 12 markii caalamka la saaray iyo heestan caaw habeenka isku beeg xataa soo jiidiyo nuuc u sameeyay markaas wallahi waxa qabsaday cirkii dhulkii madaaficii riday iyo heestii oo dhawaaqay bas qabsaday
aad baan u xasuustaa habeenka waa habeenaan iga xasuustiisa iga hadhayn habeenkaas waa habeen aan xorownay waa habeen wax loo dhiga aanu jirin markaa runtii waxaan kaaga waramayaa Soomaalidu sida berigaa isu jeclay waxay xisbiba la isu jeclaa haddii xisbigan adigoo ku jiraad gabadh guursato waxa laalo waxay qaraamaadeen kugu baxay xisbiga bixinay xitaa gabadha guursanaysa xisbigaad ku jirtaad ku guursanaysa laakiin wax dagaal leeyahay ma jiro habeenkii dhow la isticaaydeynay markaas xisbi dacaadeynay aroortiina gacmaha la haysta wati calankii la qaatay markaas bas xorriyadda aan ku yeeray habeenkii kulligaan ku wasubna halkaas dabatana ka haysta de markaas waxa hees badan oo kala qaaday waxa kamid ah heestan qaaday waxa kamid ah la gaad dhixdankii la heebin jira liibaan haddaan lugooyo qabne caawan leedahay lamaanay waxa kamid ah dalaartan waxyeelada dhaqaaqay calanka dibda soo dhicin oo la islaam hayto Soomaaliland iyo maxay to koonfur waxa horeyn doonta maxay to koonfur ba gobonimada ku horeyn doonta in lix bari ba waxaan ku horeyn afar bari markaas cali sugu lahaysta sameeyay wuxuu yiri ha dhaxaale laha laga dhacan dhawaade oo aniga dhaqsade daraartii walaalkay loo dhisayeen horti dhashiso ma soo dhacin ya salaam maxamed wadan halka ka yar dhaxgalo markii xorriyadii aad qaadateen ee Soomaaliland ay qaadatay 60kii aad beerta xorriyada ku dabaaldegteen ma ilaa cadib marka dib ugu soo noqotay oo adiga iyo fanaaniintii faraha badneed habeenkii markii xorriyadii calanka la saaray idaacad mar walba inta la shaqadeeda ahayd laakiin habeenkii aan u soo halgalnay baa haayo kulligii waxaan ugu tagnay maxay too beerta xorriyada markii si xorrimadoonka aad qaarna curisay kuwa cali suule heesta cali suule sameeyo kalena aad halka ka qaaday halka ka sii bilowday heesii kale aad curinaysay iyo dabcan waxa heesaagayguna aad awaanada ugu suntan xuseen faarxi ba kamid halka waxaan ka wareegay adigu Hargeysa markii dambe aan ka wareegay walaalka xagga u yahay wadacayaanay calankii markii hore waan dhibnay calankeenu dhibnay mar labaadkana inaka yaana qoladii cadab ku jiray waati jaantal rogay walba guri ka dhistay Muqdisho imika aniga afar guri oo Muqdisho igu yaalo bariga dagaalka igu dambeysay hadii say Hargeysa hadda iga dhisnaan lahaa waa iska harsan lahaa wallahi bariga way igu dambeysay marka kuwan kulli waan heli doonaa meesha Soomaaliland baa joogtay marka waati la yaayo xaqaas aanu yaano ragii bilaabaan ahaa laakiin inkastoo ragiga horeeyeen waan bilaabnay de waad ogtahay jirda xuseen Allah u naxariisto halku ku dhashay ogtay baad labadii daarood ugu fiicnaa Muqdisho halka ka dhisay marka qoladii jaanta rugnaanahay markaas qoladii kale radio Hargeysa iga soo daba kulligii soo daba dhoofay xaqaas aan dabatay ugu tagnay markii aad sida aad sheegtay dadkii Soomaaliland ay tageen koonfur la isugu tagay fanaaniin iyo abwaaniin baraadiyo Muqdisho dabcan kadib kulli raadiyo Muqdisho fanaaniintii oo dhan wada tageen bal iyadana waxaad noo yara sharaxnaa sidii raadiyo Muqdisho aad markii aad tagteen ugu bilowdeen suugaantii iyo halkii barbilow aad ka qayb aad wax ka bilaabday والله حاجه waxa jooga kale dad fanaaniin oo jooga laakiin waxa fanka markaa haystay Hargeysa haystay markii hore markii xagga fanaaniinta wareegtay uu raacay fankii moogtay marka waxa qoladii halka joogtay baan ugu tagnay qolada rag badan oo xarfaana ku jira wax tumi jiray waxa kamid ah Xuseen Mabruuki waxa kamid ah Allah u naxariisto dhintay Xuseen Baajooni waxa kamid ah Xasaani waxa kamid ah Maxamed Saciid ragaas wada Baajoon baa aan tirinaya aad baan miisiga u yaqaanay waxaan ugu tagnay kala gabdhaha heesay rag baan ugu tagnay waxaan ugu tagnay Axmed Naaji meesha ka shaqeeyo ugu tagnay Daleys meesha ka shaqeeyo ugu tagnay Duniya meesha ka shaqeeyo ugu tagnay iyo gabdho kale oo fara badan qolada baan iskala qabsanay marka tiyaatar waxa ma jirin radio Hargeysa sabaxdii radio Muqdisho lagu kala jiray rooti halkaas heesaa lagu soo duubi jiray Axmed Naaji oo kale aan wareysanay wuxuu noo sheegay in markii aad u timaadeen kooxdiinii walaalaha Hargeysa iyo radio Hargeysa timaadeen aad una timaadeen midhahan aad ka loo jecel yahay suugaanta oo iyagu ay wuxuu Hindi baan anigu shidan jiray heesani qaay jiray heesaas ka soo baxa xagan Hargeysa Soomaaliland ka soo baxa bay qaay jireen hees ma bay aqooninba kuweenay qaay jireen
markii dambe dee waa la isku ilbaxayo dee kolley qolo walba qolada waxay dib u wadatay laakiin heese badan sibay jirtaan xagga joog waxaa ka mid ah maxay too soo cajiib ka mid ah hoolees leeyra ka mid ah miyad aaw moogta ka mid ah waxaa ka mid ah maxay too idagnuura ka mid ah waxaa ka mid ah maxay too dhoolguba ka mid ah amrigiiba jacayl baa ka mid ah waa badan dee lama tirin karo intaan waxaa jira cajilado badan xitaa fadhiyada ku qaban jirno aan dib ugu noqon jirin ilaa 5 cajiladood baan garanaya intaan duubay haystaa aan dib ugu noqon hadda doonayaan soo cusbasani haddii aan ku noqdo heestan aan inkastoo heestaa kala horsiin doono waxa aad iyo aad runtii loo dadku alaanka dhageysa uga shaqeynaya heestan carabku dhufatay cajiib oo ay dadkuna aad u jecel yihiin balse ku timi taariikhdeeda waraba cajiib waxay leeyihiin ninka Trawi leeyahay waxa ku jirtay kelmad baa ku jirtay la yiraahdo isagoo ka qayliyana ka qayliyay oo markii hore laakiin aan iska qaadaan oo eegin bahasha barigii hore bahasha balwad baa noo geynaysa baxayto nooma geeynin ku shaqaystay waxaas balwad baa noo geyn jirtay waxa laga yaabaa heesa midha khalad inaan iska qaadi jirnay laakiin markii dambe waan dareennay labadeeduba isagoo wuxuu jiray maxamed heesti baabi ana waxaan jiray war hadraawi heesti baabi marka kelmadii waan ka bedelay waxaan ku bedelay dadku inuu ku calmado waxay awal dadku inuu ku caabido madowga iyo cadaanku ku caalay masalan marka kelmadii aad bay noogu cuslaatay waan ka bedelay waxaan ka dhignay dadku inuu ku calmado madowga iyo cadaanku ku caalay masalan war ka dhignay marka qorintii meesha marka iminka meelahan ku arko waxaan dhadaa baabiyo tan baan ugu bedelay marka si luuqdeedu dhacaysay maxamed heestan dadku si deynto luuqdeedu si u dhacaysay heestan cajiib awayo ayaane aqligaad xadaysa sida geed caliyo buur carrahodan ku yaallo obkano irmaano dhirsa kale kacayno hoobana xasuustilni lama cuslayso ubaxuna tiniyo dhib kaga dhigay cadaanko dusha sare caleentii idhibka isla gaadhaal biyo wada cabteeno haddan lay cadaabayn rabbi iadoonayn dadku inuu ku calmado madowgiyo cadaankuba ku caleema saaran sokumaana dee عجيبي قوي وياني عبدها صنيسا عاتدقل عليهم الرهدا في عنهم كانوا عجيبي قوي وياني عاتدقل عليهم الرهدا في عنهم وكانوا سكلت عينهم ربنا سوسي لما شيئتوا بحراتي وردي تغلي شطرت عينهم ربنا سوسي
لما خيبتو وبحناتي وهدي تبدي شفري عليكي هدت كيس لقادا هي ودعتينو حتى في عذابي ربي يا لبني بكوينو وعبدو مدوي وعذاب وعبي مكارا شفري عليكي هدت كيس لقادا هي ودعتينو حتى لي عذابي ربي يعدوني بكينو وعبدوني وعدوني وعذاب وعلي مسارا وكما وحد وداكتن بالكواجر له صفيك عاتم للأسار لا اسكد الليني اسعى والفرات عاد وحد وداكتن يا سلام يا سلام يا سلام runtii waxaan maleeyaa Maxamed codkaagu inaanu wili alanka oo unique yahay runtii waana dhalan iyo arka waxa jirta hees Maxamed oo inta badan hadii runtii inuu fanka wax lagu xasuusto ama cid loogu abaalgudo abaal la yiraahdo way tahay oo dabcan adigii abwaanka sameeyay baad ku amaanintihiin waa heesta hooyo oo ilaa hadda aan isbedelin hooyadoo loogi taariikhdeeda marka bal heesta ayada ma ka sheekay waxa jirta kaagama waramin inta muqdisho jooga intaan kaalin fanka ka soo hooyay way badantay laakiin waqti dheer bay rabtaa in laga waramo iyo waxyaabihii dhacay anigu fanka aad baan uga soo shaqeeyay waan aad baan u nooleeyay laakiin abaalkan lahaa maan helin runtii baan ku sheegay waxaan ka helay abaalkan lahaa ummadda Soomaaliyeed oo aniga dadaal badan aan sameeyay ii qirtay nin reeti buti ay igu yiri wuxuu yiri Soomaalidu waxa kaliya ku heshiistay waa magacaaga weyn alaaga ku heshiistay marka taan cilmi qabo kala dib shacabkii ugu ii bixiyeen de boqorba wax ka weyn oo la rabaaba ma jirtaba adduuna دم مقع واله لكن عدول واله لكن مقع لما مركا waxaa jirtay arimo badan fanka ka qabtay markii Suudaantii Manisi marka xaga ku joogay dhibaad waxyaabo badan ka qabtay jiray laakiin xilli kale ka dhigan doona kuwaad kulay diilahay heesta hooyo oo kala dib ku soo hooyo waxay dhiibay hadraawi ay dhiibay iyadii cajiibe marba uu wada dhiibay waxaa jirta hees kale uu dhiibay hadraawi hobal la yiraahdo heesta wax qaadi kara ma jirto aniga ku dheed markaan imka dhigeysto waxaan idhaahdaa wartalo heesta markaad samaysay sidaadahay wallaahi waan idhaahdaa iyadii hees la yidhaha gocasho iyo heestaa cajab hobal iyo heestaa gocasho la yidhaayo waa heestaa codkooda yaabka leeyahay dee hooyana isaga ay dhiibayoo hooyada waa waxaad moodaa inuu ka soo qaaday maxay tu qur-aan ka soo qaaday aad iyo aad baa midhaheedii aniga haddii hooyo ammaanteedii waa u qalanta heestaas
يده باشي تمرح بينه استلما يلينه اسلما هيامي يحيق تشوفه ولا انت يده باشي تمرح بينه استلما يلينه اسلما هيامي يحيق تشوفه إذا هاد مصوني توصلوا لسوء أول مجالي إذا هاد مصوني توصلوا لسوء أول مجالي وقلب مطوري الفجر تنوبه وحتى جيسي والشمرة بخيسة وقلب مطوري haddii aan dhowr su-aalood kaas yara weydiiyo maxamedow dee sidaad u sheegtay magacaas soomaali maanta ay ku heshiiska tahay meel kastoo ay joogto haddii ay NFD joogto iyo haddii ay Djibouti joogto iyo haddii ay Somaliland joogto iyo haddii koonfur joogtaba waxa weeye marka la magaca maxaa salaam tabiic waa boqorka codka la yiraahdo ilaa haddadan oo cid ku barasin ma jirto laakiin waxa ka siyaa badan baa la yiri maxamed ilaa iyo taariikhda 7 ka soo sheekeynayay ilaa hadda codkiisa inkastoo qofka codkiisa dhifar ku imanayo ama isbedelayo haddana waa fanaanka kaliya ee codkiisa weli aan isbedelin oo marka la eego heesaha dhawaan soo saartay waxa weeye muddo badan waan ka fadhiyay fanka waxa igu wacnaan waxa weeye waxaan aad baan uga soo shaqaynay fanku weli dadkeenu sida uma sii fahmin waxa weeye fanku waa qaran weeye qaran adduunyada ka dhaxay weeye qaran ma aha waliba qolo kali qaran ee dad kali leeyahay ma waa qaran adduunyada dhan ka dhaxay waxa weeye waxa lagu bartaa inta badan adduunyada dawladaha adduunyada waxa kamid ah fanaaniinta kamid ah Suudaantan betelan leeyahay nimanka Suudaanta leeyahay ma inoo aqoonin waxaan ku baranay fanaaniinta carabta nimankii waxaan ku barnay fanaaniinta Fadil Casr Rashiyo Abdulhalim Xaafid iyo Maxamed Abdulwahaad iyo maxay too qolooyinka caynkaas ku baranay iyo maxay too gabadha Farid Arshi walaalahay oo jiray ismahaan iyo Kaltuun iyo waa dadka lagu bartay fanka lagu bartay hindida sidaas ku dheeday Maxamed Rafiiqi Mareykanka waa dogtay maanta marka waxa weeye waa maxay too muraayad adduunka ku tusaysa fanku waxa weeye fanku waa qaran waxaan ku leeyahay waa shay kaliya fargooniya lagu qorayso jaamacadda 7 sano lagu jira 4 sano lagu bartaa fanka ha marka in lagu ciyaaro maxay too ma fiicina hadda taas su'aal ka weydiin maxamedow maadaama fanku sida ay yahay 7 sano la baranayo dabcan dadaal baad soo gashay fanka wax badan baad geliso taariikh badan baad gelisay adiga iyo ragii kula midka ahaa sidoo warta dhalinyarada imka say ugu jira dhalinyarada hadda soo baxday هو بدنا فنانين وكجرا عاد فيعني أما دبربا لكن فنك هوس بودع waxaan oran karaa boqolkiiba 90 buu dhacay fanki waxaana ugu wacan dhalinyarada ka sokooba xadaarada maanta yaaniga Soomaalida dhibaatada ay wad ogtay wadankeena iyo dalkeena dhibaatooyinka jira dadku markay sidaas dhibaato u dhacdo ummadii ku dhacdo fankuna ku dhacaysa marka wuxuu la mid yahay maxay too
dhibaatada dadka gaadhay baa fankiina gaadhay laakiin yaa maxay too ka qayb qaatay dhibaatada fanka ku dhacday dadka hadda heesa lama rabo in dadka heesooda ku heesaan awal markay inamadu heesayeen way noo iman jireen intii xitaa heesaha hirgelay ka hor way noo iman jireen markay nala xidhiiraan la bartaan baa ninka midhaha sameeyana siin jiray ka heesta sameeya codka sameeyana uu sameyn jiray wayna soo dhexgeli jireen dee qolooyinka marka dambe soo kacay waxba wadiya mid baa anigu maxaad nagu aan heeso ku sameeyay kale maxamed maxaan ka soo danooyo kuwan cajilada ku jiraaba iga badan oo fanaaniinta hore leeyahay marka iyaga qudhoodu aqoonlaan bageynaysa mooyaane isma laha wax baabay wax xumay isma laha marka dee laakiin markii xagga la joogay dee ciidan buu helay qofkii maxay too soo baxay halkan waxa laga yaabaa in ciidan qofkiiba helinba laakiin waxaan ku sheegay fankii inuu hoos u dhacay oo xadaarad wuxuu la socdaa ummadan la socdaa fanku ummadan waxay qabto qabaa marka sidaas fankii hoos ugu dhacay laakiin insha Allah kor buu soo kici doonaa xagga riwaayadaha inkastoo maxamed aad waxba iga sheegay ilaa imsa riwaayad bad wax ka dhigtay qaar adigu lahayd inkastoo ay jireen horta taas ay dambaysa waxaan ku soo gabagabeyn lahaa taasi ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo haddii la rabo fanku inuu saro kaco qof waliba heesu isagu leeyahay aqaado ay iska dhaafay heesaha qof dad kale marka aniga ka soo qaadba heesayga qof kala qaado taatu ma iska dhigaysanaya aniga laba baahnaba laakiin hadii wixii la ariga leedayo waxa laga yaabaa inay wixii sidoodii sharaftoodii wataan marka waxa fiican markay fanaaniinta soo baxayaan ama rag noqdo ama dumar la waxaan kula talin lahaa haduu dooriyo qofku inuu soo baxo oo fanaan noqdo inuu hees ku bilaabo isagu leeyahay hadda kale waxa jirta qofka markuu qaado qofka heesiisi isagu buu ekaanaya meelan isagu ugu ekaanaya meelana wuxuu ekaanaya lama yaqaano marka ma qiimeyn karto qofka xitaa qofkii buu weegiyay qofkii heestaa laha buu weegiyay haddaas tira qiime ma qiimeyn kartid laakiin markuu heesu leeyahay isagu leeyimaado codaan looga horeyn leeyimaado waad qiimeyn kartaa codkiisa laakiin haddii kale qofkii ma qiimeyn kartid buu weegiyay waan gartay xagga riwaayadaha maxamed adigoo hortii aan ku soo gabagabeyn doona ka war imsa riwaayad wax ka dhigtay walaha ma bageli jirin waa ka cari jiray waxaan hawlo kale isku wataa bacad misri xasan ka dukaanaan lahaay maxay tahay baawur iyo xasan la riwaayadahan waxa weeye xog lagama heli jirin intay qaadaan bay 3 bilood 4 bilood wareegi jireen wallahi wax fiican kama heli jirin marka aan waxaan jeclaa hadii jirin film laga dhigo laakiin sodigiis riwaayad ma sameeyaan macayasiin ku soo saartay ma badnaa taa ana ba sameeyba waxa jiray 3 kale aan ka qayb galay jireen laakiin inta badan waa ka carin jiray waan ka carin jiray habla inaan leeyahay xitaa waay maxamed waxa ku dhacay waxaan dareemayaa sidaan aan kulay u qaadayo in qofna barada heesaa gabdho ila qaadaan dhageyso gabdhihi sidaan u qaadayo kulay ma qaadayaan marka waxaan inta badan jeclaan marka waxaan doonayaa inaan marka waxa iska xarwada deeyo laakiin markay gabdho ilaahan kula qaadmo waa ila qaadi jiray magool baa dabcan jirto iyadoo hees kula qaadi jirtay heesta Nairush magool ayaa sameeyay heesta hees ana sameeyay Nairush adiga sameeyay heesaan qaado dhan waxaan qaado dhan afkayga ka soo baxay ana wada sameeyay codka imkana macmidaha ban sameeyaa imka xajir aad baan qabanayo waan doonayaa inuu halkan doonayaan ku qabto hadda waxay fadhinaa caawa dabcan Rashid kam hergeysi leedahay aan ka sheekeynaya gabadh baan waxaan leeyahay waatan ku sheegan ku habeenkii 26 June aad baan u jeclaa aniga kule marka gabadhan aad u jecelahay baan habeenka ku qiimeeyay habeenkaas aan gabadhiisa habeenka u jeclaa baan ku jecelahay heesti baan hadda qabanaya wax ka sii maqashid dadweynuhu hadda ma waa kama sii dhaw waa jidid boqoradaan sheegay hadda ba halqafaysa dikale maxamed waxa jirta heesaad dhawaanaha soo saartay oo aad u macaan oo runtii ilaacadaha oo dhan VOA haday tahay ilaacada oo BBC-da iyo dhammaan website-yada waaweyn oo dhan ku jirta heesta aad baa loo jecel yahay waa heestan adiga dareekii kugu raacay dookhe codka adiga le Soomaha laxanka heesta lagu sameeyay waa heesta albakaad soo wada dhamaantii wada cusub ma waxa ku jira ilaa 5 heesood cusub baa ku jira laakiin yaable baa ku jira dab heestan maxamed waan daalay daayo yaa sameeyay heesta waxa sameeyay Allah naxariiste laba nin oo hadda labadayba dhinteen mid wuxuu ahaa Xuseen Faarax midhaha sameeyay
iyo maxamed nahaari oo codka sameeyay سوي دعسة استلح كده إن واحد يسأل ما له ده كسر ده حاجة إذا عدى من gabagabadii barnaamijkeeda hadii soo deeyno maxaad u rajeynaysaa dad badan baa ka dhageysanayo boqolaal kun oo qof ka badan oo maanta runtii nasiib u helaynay boqorkii codka maxamed salebaan tubeec oo aan in badan runtii aanay codkiisa maqal waraysigan xiisaha leh dhinacyada taabanaya iyo taariikhdiisa fanaadkiisa halkan inay ka dhageystaan albanna waa digan soo wada aad heesta habeenka 60kii ku muusaysay habeenka taariikhda xusuusta ku leh Soomaaliland beerta xiriirka ka dhacay maxaad u sheegaysaa dadka shacabka ka dhageysanay maanta waxaan u sheegayaa shacabka salaamaya حسنان بان في عم بندر يا شعبك وحنا أمك يكلفين عالبن قبته والشعب كدرادي وهاي مدبر بان كلام غني عن الشعب مركا waxay leeyeen warninkii maxamed sarwaan mee xaqo qabtay daay heleen bal taasaan ugu tuuraya si ay fahmaan in ma qanaa waxaa leedahay markaa albakina isteexo kadib ismayna aragay albakina saxad ka bacdi ismayna aragay bal waa taas taaqata baan leeyahay taas markaa hadda sameeyay aad iyo aad baad mahadsan tahay boqorka codka maxamed salebaan tubeec waraysigan iyo waqtigan qaaliga si aad baa kaaga mahadsantahay adduunyada nin doofiyo ninkii degan dhulkii hooyo adduunyada nin doofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dergiyo nin dhowr qaday andefay dergiyo nin dhowr qaday andefay esigiyo labood baa hawli kama dhamaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala esigiyo labood baa hawli kama dhamaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala أنا داويجي جعلي دكاستان لتدلي أنا داويجي جعلي دكاستان لتدلي intaasi waxa ku dhan dhageystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudana waraysigii xiisaha lahaa ee aanu la yeelanay fanaanka caanka ah ee maxamed salebaan tubeec oo rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyay dhawaan ku geeriyooday cusbitaal ku yaala waddanka Jarmalka
waraysigan oo aanu si taariikhiya idinku soo gudbinay waxaa idinla socodsiinayay dhammaan bahda Somaliland Today Media Group tan mid lamida ku kulmi doono salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ambakugu madafin hadaysaadu delidoe ambakugu madafin hadaysaadu delidoe mahadai dankagai sukita dalishwe mahadai dankagai sukita dalishwe madiradu nimangarab wahlagula isayne madiradu nimangarab wahlagula isayne نفتدول العيون ببيعبها عمودي أنا دايقي لعلي ببكاسة دعيكي دنوسي ولفاو داعي جعلكي دروحي ولفاو داعي بالقدوم دريوبا دمان يكين بالقدوم دريوبا دمان يكين دوريستي دوقدا أيان دور فقدايا ولدبان مثل مدا مثلا عدوكي دوريستي دوقدا أيان دور فقدايا ولدبان مثل مدا كمدلن أدوسي أنا دايقي سعيد بكاسان بدليا أنا دايقي سعيد بكاسان بدليا